dee arrintii lama gudagelina laakiin qaabka loo agaasimay markee laga bilaabay labadii raas ee hoose in arrintii iyagu ay u madax bannaanaadaan oo ergooyinkii kale ee dusha lagaga geyn jiray ama dadkii reer Somaliland u gurman jiray dee iyaguna wax wanaajiya uun lahaa qaab kale oo moodeen markaa inay ka fududaan karto oo labadii raas gudahoodii inay arrintii bilaabaana labadii reer ee hoose ayay maraysaa oo ku bogaadinaya inta bilowday ee labada reer ka soo jeeda waxaan ku rajo weynahay arrinta iyo gudagalkeeda in natiijo wanaagsan oo qiimo leh ay ka soo bixi doonto way nagu rafadeen arrinta ceelaf weyn imka wax rajeynaya in si wanaagsan gobonimo leh u dhamaan doonto talabaad dhinaca kale ee galbeedka ee aad raacisay oo runta khilaafaadku iska jiraan oo meesha la yiraahdo gaarisa agteeda nin baabir dhaxaasa ku dhintay arrinta waa la galay xukuumaddu way ka gurmatay dad badan oo waayeel oo labada dhan ba ka tirsanina hawsha way galeen inkastoo aan weli la soo qaban ninkii haddana laakiin meel fiican bay iyana maraysaa oo wada hadal wanaagsan baa socda xagan kale gargaar lafteeda dhawaaq baa ka soo baxayay markaad sugayso jawaabta labada goobaha galbeedka aan sugayay jawaabtooda waxa weeye xukuumaddu guddi bay u saartay maalmahan markayna dhaafay waxaan ku guubaamin lahaa guddida loo saaray iyo guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha inay adeegsato dadka ehlul aqliga ah ee xaaje qaadka ee tala qabeenka ee labada beeloodba ka soo jeeda si wixii mugdi kaga jira ay ugu iftiimiyaan oo ay gacan buuxda iyaguna ugu siiyaan taas man iyagana ku talin lahaa waxaan ku rajoonayaa iyaduna inay dhammaan doonto mana gaarsiisna heerarka dee sida bariga oo kale heerka ay colaadaasi gaadhay tani ma gaarsiisna waa arrin aanada dibadda qabiil la yidhiyay dee la soo afjari karo oo dhammaan doonto teeda kale aanay lahayn baa sharcigu siiyey shuruucda dalka ee noo taala ay siisay waayo iyagunba maanta sharaxay haddii dowlad hoose tahay hadday baarlamaan tahay hadday madaxweyne tahay hadday madaxweyne ku-xigeen tahay siyaasiyan iyagunba ummadii matalaya oo international community-ga maalin walba la kulmaya adigoo wariyeyna lama kulantid anigoo madax dhaqameedina lama kulmo marka sharcigu wuxuu bulshada wuxuu siiyey iyaga fursad wuxuu bulshada ka gaara buu iyagii siiyey sharciga sidaa u maamusay qiimahaasi siiyey inay dib isaga celiyaan oo maanta shirbeelada ay dib ugu noqdaan shirbeeladku annagu dannoo yahay haddana waxaan leenahay tii annaga dannoo yahay war danta dalka iyo dadku kuma jirto ee halkaa aad joogtaan ka sii socda oo inaan dib ugu noqon wixii soo maray dhowr iyo 90kii dalku halku joogo in hore looga socdaan anigu ku talin lahaa in dib loogu noqon meelan ka nimid wallahi arinta gudaha doorashooyinkii hore waqti badan bay naga qaadatay muran badan oo hore oo waqti badan inaga ridayba soo jiitamay waa ku xisbiyadu heshiiyey in sharciga sidii hore mar labaad gudidii doorashada loo soo magacaabo cid walba intii sharcigu siinayay soo magacaawdo dee oo ballantu ay ahayd man jeclayn runtii inay soo noqoto muran dambe inuu nagu soo noqdo waayo maalinta qura inaga gooda danta dalkii dadku kuma jirto waqtigana dib un bay inooga sii riixaysaa ama doorashada aynu doonayno inay inoo dhacdo oo maanta aynu aragnayno duruufaha inagu gadaaban aynu arkayno adeegii dowladaha hoose sida maanta caasimadda ay uga aradan tahay wax kale iska daayo waxaan jeclayn doorashada inoo dhacdo oo halkaynu taaganayno hore uga socono tan guddida doorashadeedii weydiisay dee waxay la tahay magacaabistiina sooba dhammaatayba walow dee tabashooyin iyo su'aalo fara badan ay ka yimaadeen haddana imika dee golaha baarlamaanku bay hortegayaan shaandhada dee wixii maray ee ka gudbaana way gudbiin wixii soo noqdana dee dib unbaa loo magacaabay lati way maxaad xal oo aragtaan maadaama arrimahaas cakran yihiin waxa weeye dagaaladii beeladu taagan yihiin arrimaha doorashooyinkii taagan yihiin waxa weeye xaaladaha idinku maxaad xal oo aragtaan wallahi xalka dalkii dadkaan u aragnaa in lagu badbaadi karo ee halkaynu joognayn hore uga sii socon karaa waxa weeye in midnimada iyo wadajirka iyo walaalnimada ummadda reer Somaliland laga shaqeeyo qof waliba nolosha inta kaga aadan uu qaato xisbiyadu ay isku ixtiraamaan mid walba wixii sharcigu uu siiyey wada shaqayna ay yeeshaan danta dalkii dadkana ka weyn qof dantii marka inay taasi iyaguna tixgeliyaan oo xisbiyadu ay ka shaqeeyaan maadaama siyaasiyiin iyagu ummadda ay matalayaan muramada ugu badan iyaga inay ka yimaadaan saddex xisbi qaran inay naga yimaadaan waxaanu jecelahay haddii aanu bahdii dhaqanka ahna ku baaqaynaa nimka ku baaqaynaa horena ugu baaqnay beritan ugu baaqi doonaa biidnillahi tacaala in wadajir iyo walaalnimo iyo xisaanshaha ummadda laga shaqeeyo oo xoogga la saaro oo la isu dulqaato oo sidii Somaliland ay ku caanamaashay sanawaadka 27 sano aynu ku soo dhaqmaynay la isqanciyo oo wixii muhiim ah soo galo wax la iska weydiiyo laakiin la eego danta dalka iyo dadka